waxaan weynahayaa mas-uuliyiinta sharafta leh ee munaasabadatan qiimaha badan soo xaadiray oo kala gedisan ee isugu jira mas-uuliyiinta federaalka Soomaaliya iyo kuwii galmudug dhammaantood waa u mahadcelinayaa sida iskaashiga leh isjacaylka leh wada shaqaynta leh wanaagsanaynta leh oo ay uga shaqaynayaan arrimaha galmudug nooc kastay noqoto ha noqoto dib u heshiisiinta ka socota deegaamada galmudug oo weliba midka ugu weynay caasimadda lagu qabtay aadna ogtihiin in habeen dhoweed madaxii ugu sarreeyay Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre labadooda midna uu furay midna soo xiray aad baan ugu mahadcelinayaa dadaalkii dheeraadka ah ay sameeyeen iyo midka ay samayn doonaan hadeerba waxaan aad ugu mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida ee ka shaqaynaya amniga Soomaaliya gaar ahaan amniga galmudug oo u istaagay in aan ku naalnoonno nabad iyo baraare iyo barwaaqo meeshii wax ka dhacaana haddiiba u samaynayo birmad iyo gurmad ay ka gaarayaan in la dabyaaseeyo wax alla wixii dadka dhexdooda ka dhaca aad baan ugu mahadcelinayaa munaasabadda tan qiimaha badan ee ay isugu yimaadeen dhallinyarada ka socota labada degmo Balanbal iyo Guraceel aad baan u mahadcelinayaa sida farxadda leh wiilasha iyo gabdhaha sida ay u soo abaabuleen oo uga shaqeeyeen oo ay arrintaas u taabageliyeen labadii degmo ay u kala doolayaan midba mar ay ku shirahayaan waa arrin aan gadaal ka taagannahay waa dhiirigelinaynaa waana soo dhawaynaynaa garabkoodaana taaganna sidaas oo kaleeto waa inay sameeyaan odayaasha dhaqanka oo aan u xafladayno ayagoo labada degmo hadba mid ku xafladaysanaya waa inay sameeyaan gabdhuhu waa inay sameeyaan ganacsatadu waa inay sameeyaan si yacni ummadda dhamo ay isu dhex gasho in la sameeyo nabadda noocaas ah in la sameeyo dhallinyarada kaliya aysan ku ekaanin taasna waa ku boorinayaa bulshada qaybaheeda kala gedisan runtii dhallinyaradu waa lafdhabarka bulshada gabdho iyo wiilalba waa lafdhabarka bulshada waxaan leenahay isdhexgalkiinu waa isdhexgalkii bulshada waxaan ognahay meesha dhibaatada ka dhacday dhibkaas dadkii geystay baadiyahay jiraan sida laga dhawaajiyaba waa dhuumanayaan waxay u gagabanayaan in ama dhib kale ay geystaan ama maalanba aan la qaban oo aan waxa ay geysteen aan marna yacni aan looga jawaabin oo wax loogu geysan ayay u dhuumanayaan waxaan leenahay iyaga laftooda waa in loogu tagaa meelahay joogaan la dhaqan celiyo la waaniyo wax loo sheego la yiraahdo walaalow jooji dhibka walaalow jooji baraarujinta dhibka nabadda aan baraarujin fitnadu waa hurdaysaa alfitnatu naa'imatun lacana allaahu man ayqadahaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fitnadu waa hurdaysaa ilaahay lacnadiisu ha ku dhacdo midka baraarujiyo hurdada ka kacsha buu yidhi marka iyadoo nabaddaas iyo barwaaqadaas la joogo ayaa mid balaayo shaydaanku shidaya ilaa naar baa loo ballan qaada shaydaanka marka waxyaalaha naarta lagu galana waxa ugu horeeya waxaa ka mid ah dhiigga dadka islaamka ah la daadinayaa ka mid ah
markuu qof dilo xagguu gala meeluu gala ma haysto qof kasta waa ka cabsanayaa qof kasta waa ka cararayaa waxaa weeye dhibaatadaas si aysan u soo noqon waa in la dabar jaraa waxyaabaha lagu dabar jari karo oo dhan dadka khibradda u leh ayaa laga maalaa dadka khibradda u leh oo dib u heshiisiin in badan ka qayb qaadanaya oo nabadoonnadu ka mid yihiin oo aqoon-yahanku ka mid yihiin adduunyada waa mucaamashaa waa in inta lagu sameeyo dib u raacid lagu sameeyo loo sameeyaa arrinkaa dhaqan fiican oo dadku ay ku wada dhaqmaan oo ay ku heshiiyaan oo boobihii la dhayo oo qof walba wuxuu tabanayo laga tiro arrinkaas runtii anigu waxaa isdhihi lahaa waxyaabaha lagu tiri kara waxaa ka mid ah dhallinyarada gabdhaha iyo wiilasha in laysu guuriyo anigu waxaan ballan qaadahayaa 20 gabdhood iyo 20 wiil in la isu guuriyo oo meesha dhexeeda labada magaalo ka dhaxaysa talada iyo tooyada labada laga dhiso marka ay soo doorteen gabdhihii iyo wiilashii ayagoo is soo doorteen markay is soo doortaan meesha dhexaad inta guriga uga dhisnaan ku aroosinayna nikaax jamaaciyan u samaynaynaa aroos jamaaciyan u samaynaynaa runtii waxaan rabnaa in intii dhibatay ay dhashaan mar dhowaan rabnaa mar dambana aysan isku dhiman oo wiiliga adeer iyo wiiliga abti iyo gabadhiga eedada gabadhiga hareer laysu noqdo waxyaabaha laga suuli karay ka mid tahay waxyaabaha yacni ummadda isku dhex gashay ka mid tahay alxamdu lilah rabbi alcaalamiin marka wiilasha iyo gabdhuhu muddo 20 casho ay haystaan waxaan aad iyo aad haddana ugu sii mahad celinayaa ciidamada qalabka sida oo ammaankaas yacni gacanta ku haya hadda gacanta ku haya waxaan leenahay ka daalanina annakuna waa idin garab taaganna annakuna waa idin garab taaganna waxa weeye waxaan ognahay degmada balanballe ganacsatadaan u yeeray saldhigaan dhagax dhignay maxkamaddaan dhagax dhignay guriga hooyooyinkaan dhagax dhignay balanbal kulli saldhigaan la bilaabo ganacsatadana bilaabo waana dhammaystireen ganacsatada waa mahad celinaya lacagtiina waa soo dhowraya kuwa maqana maxkamadduna hadda kana dhacdo waayo markii qofka la soo qabto sharcigii la geenayo meeshuu degganaanahayaa la rabaa wiilkiina waa kii waa ku dhegan yahay waa diyaarinna oo maxkamadda iyo stationku isku dheganaayeen halkan qurcada waa ka diyaarinna sidoo kale iyo matalan kulli waa ka diyaarsan yihiin maxkamaddii oo qaadi lahay sharcigii islaamka iyo saldhigii amniga si ay isu kaashadaan oo qofkan markii la soo qabto haddiiba sharciga loo geeyo oo markaa laga oofiyo wixii sharciga islaamku oo markaa ka qaba wuxuu geystay waxaan leenahay waa la furaa mar dhow haddii alla idmo halka meesha dhexe lafteeda oo deegaanadii yani ciidanku wasaa u gaafmeerayo xabsigan ka dhisaynaa haddii alla idmo iyadan ilaahay sidii jenaraal kuu sheegana waa dhisaynaa haddii alla idmo ilaahay idankii waana hadda tuulada gabdhaha iyo wiilasha la isugu guuri doono haa sanatarku wuxuu soo jeediyey in tuulo barwaaqa la yidhaahdo in sha allahu alkariim haddii alla idmo gabdhaha iyo wiilashana middaanba u qabtaba haddii alla idmo tuuladana waa aas-aasaynaa haddii alla yidhaahdo in dhan walba ay uga faafto oo ciidanku ay ku nastaan oo labada magaalo markay tagaan in dalaga meeshii dhexe oo gabdhaha iyo wiilashii ku soo dhoweyn lahaa waa kii hadda gabadhu ka hadlaysay gabadhu maxay magaceedu hodan yahay haa maasha allahu kaana aad iyo aad ilaahay idankii geesinidaana raba gabdhahiisa soo qadimina waa la rabaa